maslahay ay dawladdu ka taxalanay وحالنا وحلا يوحي دولة سومالان معارك وها وحلا يوحي إلى النعبة وحلا يوحي كونفور كيمادا مصلحة يشوف يعني كذا برلمان باتشوجا سوماليا كيم نمن حيرك هيا سوماليا تشوجا نيسا تشوجت أو دولة دي سوماليا واحد تشوجا سردونكي جيبوتي باتشوجا وحاصل حالنا على وهايا وحاصل إنه حكم مسؤولة رئيس الوزراء هذا كسموريد سومالان فيها هلا ديرو أنتو وقلت لي أديركي شانكي لما يحنا فيصل بوطن أيام مجال تشوجا رجبي عايتين شيء دك عايتين كي أورينها ما نتي بس عارض أي لقى صعيد كسب حي لها بدل بويا وتقال كي بدل هاي كفر حسنا عيد كفر حسنا أي عيد جمهورية الصومال لا ما أنت ولا شرفت لها تقال هاي كسب باباي أيام ما إلى عليا كم عجابوش وحويا رئيس الوزراء هالطلقة وانك مدحتوي جمهورية الصومال لا نحفليها وانك حسب الكلمية دولة دي مصبح يكون حكومة سنة سنوات حاجة وانك ما نتي لو يتولوا عفية مركم حابس السيديني سجعوا جيبوا له عفية تكن وانك يسكو عسيري ترى يتبقى ويروح حرية شو سنوات حاجة ويالا نك هو حرية ويل أنت ويروح وياه أي من الحيوانات تعرّي مركب عفيس في دي سأل الله حري وانك ما أنت مدحتوي حرية وانك السيادة CIC حركة شقيسة سردونك وقابل سكوريتي في الصومالية وانك إسكاله حتى قريبا قاعد يقول لك ولا دوري العفس ما في ديو لا سومال لا بوين شم يا قاركود أي وطني سمين أيام بكمدين وضلا لما تي بربراء يبرعيس كحريس الشيخ صوم رئيسي أو صدح سنوات سعودي أو لما هذا حيد وأنت هيرد الشيخ بورت الشيخ عيد النايد أي سوسة وريني كل هاين يعني واقع ما يستلمه مركها والدولة دا يسكو فرنكها والدولة دا عشان تهر هاي هرتوا على معارضة متشلم بسم الله الرحمن الرحيم وتمرك جور صباح السلام يا رمان ومضى رئيس سوماليلاند مرور بقى يشوف تتافه الدنيا ذلك الدبادي دي سيجوده سبق رئيس سوماليلاند وحليه هاي happy 18 May maadaama ay nagu soo dhowdahay maalintii 18 May ee xorriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay si wanaagsan loo dabaaldego marka inta kaga gudbo horta runtii waxay ficlaan lahayd boqolka cisho wax qabadkoodii iyagu inay soo bandhigtaan marka hore ilaa hadda laakiin waxay soo bandhigeen ma jirto xisbi ahaanna markaas laga jawaabi lahaa oo xisbi ahaan baa looga jawaabi lahaa laakiin maadaama maanta aniga la weydiiyay jawaabta muxuu hayday ay ka soo aanay wali waxba soo bandhigin oo aan arkay laakiin meelo dawladdeedii hore xisbiga xaakinka kulmiye hore meelo badan oo ay dhamaystirtay oo ay iyo meelo badan oo iyadu ay gacanta ku waday dhamaanayay inay iyagu iska soo sawirayeen ilaahayeen waxa weeyaan waa wax qabad aan qabanay wadooyinka ay kamid yihiin haday balgubala tahay haday baki tahay haday sheekh tahay biyo balaarinta berbera haday tahay dabgelinta magaalada soolarka balaarinta xitaa magaalada berbera haday tahay waxa soo dhan waa wixii xukuumadda kulmiye ay qabatay qaarna dhamaadka ahaayeen qaarna ay dhamaadeen ay mar labaad ku soo celinayeen marka la karto inuu ka warsugi doonaa waxa ay soo bandhigaan laakiin anaga fikrada aan ka qabno dawladda horta gebigeeda waxa la isku furan waa dawladii isku furan ka ahayd waa dawladii ugu horeysay ee boqolkeedii cisho isu furtay Soomaaliland iyo Soomaaliya waa dawladii ugu horeysay ee sixir bararka Soomaaliland maanta ka jira ilaa iyo hadda aan maara u helin dawladii hore kulmiye ee anagu ka tirsanayn marka eegto sixir bararka wala dagaalami jirtay suuqa doolar baa lagu soo deyn jiray boqolka doolar hoos baa loo dhigi jiray dadka loo dareyn jiray danyarta loo dareyn jiray tan waxa u maraysaa inaan danyarka loo dareyn ganacsatada loo dareynayo sababtoo ah taana waxa ku tusaysaa boqolkii cisho ee aad arkaysay ilaa iyo hadda doolarku kuma dhicin 110 ilaa hoos uga dhicin markaad eegto bangigu taleefanka dhexdiisa wuxuu kugu sarifayaa $100 boqolka doolar wuxuu kugu sarifayaa 1 milyan markaad dukaanka wax ka iibsatana saaba boqolka doolar u dirna halkii milyan u dirna wuxuu ku siinayaa inuu ka qaado 1 milyan iyo 200 kun maciishada sidoo kale makhaayadaha markaad fariisato waxa lagu dhufanayaa double baa lagu dhufanayaa $10 hadii laga rabo waxa laga qaadayaa marka uu yahay $14 taasina waa sixir bararka keenaysa dawladuna waxa la wax ajenda ay ka yeelatay iyadu ma jirto sababtoo ah waxaan waxba uga yeelanba ma balahayn markeedii horeba aanu meesha fuulno mooyaane waa marka iyaga meesha aanu fuulno da mooyaane oo wax ajenda ah oo ay la yimaadeen oo ay dawladdu la timi oo ajenda u degsanaa oo say dalka u maamuli lahayd ama ay magaranaysaa ay sixir bararka ula dagaalami lahayd ama ay dawladda gacanta ugu qaban lahayd ma bay hayninba waa taade jaha wareersane meelo badan oo socday hadda dhagax dhigaysa wadadii bakiyo dhamaatay bay dhagax dhigayeen gurigii muxuu dawlad gobolka ee Boorbe ay dhagax dhigayeen oo bari hore dhagax dhigay wadada dhamaatay berbera iyo burcays ku xiriirsan sheekh soo mareysay oo 3 sanadood socotay oo dhamaadahayd oo inta yareed sheekh buurta sheekh Aydinayd ay isku soo wareeyeen ku lahaayeen yani waa dhamaystirmay marka waa dawladda isku furanka waa dawladda aan ajandaha lahayn horta waxa mucaarada ma jiraan marka runta la soo sheego markaan eegnaba inaga ahaan wallahi waxaan mucaarada garan ma waa dawladda ajandada maaha dawladda maaha dawladda marka
mucaaradaysa waa dowlad wax qabanaysa waa dowlad danteeda ka fikiraysa waa dowlad ummadda u danaynaysa laakiin dowlad ujeedadeedu ay tahayba halkuu kulmiye maray iyo muuse muxuu yiri iyo ku jahaysan uu mar walba shakhsiyaad dowladda hore ka tirsan sida madaxweynaha hore muuse oo kale iyo marka maba ahaba waa dowlad dagaalamaysa waa dowladii ugu tayada xumayd waa dowladii ugu wasiirada liidatay dhammaan wasiirada Soomaaliland markaad eegto hal iyo laba baad oran kartaa ka iyo ka mooyaane intooda kale waa zero waa dowladii ugu tayada xumayd waa dowladii ugu wax qabad ka tarnayd waa dowladii isku furanka ahayd isku furan wax marka leeyahay waxa weeye xamar bay isku furtay iminka markaad eegto boqolkeedii cisho waxa kamid ah inay dhalinyaradii Soomaaliland muxuu ahayday ka soo horjeeday dowladda Soomaaliland ka soo horjeeday berigii hore dagaalami jiray ama huwanta la socday kulligood meelaha kale ayaa qasab ku dilaysa xamar waxay leedahay meel la yiraahdo xalane oo airport ku dhigan waa meeshii tababarka ardayda lagu tababari jiray macaskarada aad tababarada lagu siin jiray xalane waxa daga dowladda shisheeye daga wixii kala waa Bermudo ummadda oo dhan waxa la wax walba halkaas ku xareysan iminka inaga xalane waxa noqotay masalaha ay dowladdu ka dhigtay xalane وحلانه وحلانه يوحي دولة Soomaaliland معارض كوها وحلانه يوحي إن النعبة وحلانه يوحي كونفور كي ماذا مسألة هو يشوف يعني كذا برلمان باتشوجا Soomaaliya كيمي نمن حركة هي Soomaaliya تشوجا نيسا تشوجت أو دولة دي Soomaaliya واحد تشوجا سردونكي جبوتي باتشوجا وحاسوا من حرام على وهاي وحاسوا من واحد كمسؤولة رئيس الوزراء حتى كسموريد Soomaaliland كل واحد مرة هنا خدمة دايرة هذا ضد بعض إلى يعبد دونا والرئيس الوزراء تشيل dalkan Soomaaliya Soomaaliland madaxweynaha dooranay inagu laakiin ra'iisul wasaare jira nin jamac gaabish la yiraahdo oo ay madaxweynaha ilmaadeen yihiin ayaa meesha ra'iisul wasaare ka ah oo dhex fadhiya dawladda isaga weeyaan ninka waxaan oo soo daadiyay isaga weeyaan wax kasta isa xamar ku xidhnaa xalan deganaa hay'adda ICIC uu ka shaqeeyaa xalana dawladda Soomaaliya iyo xalana u kala shaqeeya security fila Soomaaliya wakiil ka yahay ina ka baadiyo nin la yiraahdo baadiyo baa jiro oo Soomaaliya professor ka ah oo aad inuu ka sano dadkii uu ka sanaha oo hawiya inankiisiiba maanta joogo masalaha yaa keenay jamac gaabish baa keenay afaati teera oo marka aad eegto boqolkiis cisho ay ka mid tahay boqolkiis cisho waxa la magacaabay sirdoonkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ahaa ninkii firinka Soomaaliland ka sameeyay Laascaanood tagay ka dhigay firinka xasuuq baa lagu sameeyay reer Laascaanood ma ogtahayse muuse ku xumaa buu israayay dawladii kulmiye Cabdiraxmaan Cirraadii maanta heer lagu dacweeyo in firinka lagu qabsan karo way sababtoo ah anigu kaan dhalay ku sii dhalay hadii madaxweyne noqdo waxaan u dibay yaalaan inagu matalan Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ku haysanaa siyaab ruuxi inuu sameeyay xasuuq buu inuu sameeyay diyaarado ila la dhacay sidoo madaxweyne ka sameeyay sidoo madaxweyne ka dambeeyay Soomaaliya miyay la dagaalameen miyay diyaarado ugu duqeeyeen haddana waxaan ku haysanaa waa wixii siyaab bana sameeyay bal ninka firin sameeyay komitee ee Laascaanood ka sameeyay ee been inaga abuuray ee yiri waa la xasuuqay firinkaas ma ka haraya Soomaaliland kaasa maanta leeyahay CID muxuu sirdoonka Soomaaliland buu kamid yahay oo Soomaaliland jooga ma fahanteen dad badan baa jokiilaha hala dilo intuu ugu tagay adeerkii channelkii dhamaay xidhnaa Bootaan Faisal Bootaan ayaa magaalada jooga ragbii caaytami jiray dadka caaytay ninkii orinaha maalintii Laascaanood ay laga soo ciidan ka soo baxay laha bedel weeyaa waa dagaalkii bedel lahaa ku faraxsanaa ciidan ku faraxsan ayaa ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waliba sharafta lahaa dagaalka ku soo baabay ayaa maanta ilaalinaya oo waxaan wax ka tabay jamac gaabish horta dadka ay sharaxaan maxaa tahay jamac gaabish waxa weeyaan ra'iisul wasaaraha dalka waa ninka madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland dhex fadhiya waa ninkii xisbiga kulmiyay ee dawladda Muuse Biixi ay ku xukuntay 5 sanadood ee xariga waa ninkii maalintii dhaweytoona uu cafiyay markuu maxaabiista sii deynayay isaga awgii baa loo cafiyay dadkan waa ninkii isku casilay taliya daba gale oo yiri waan xilaya anigu ninkan 5 sanadood xariga u yaala ninkan waan xilaya buu intii uu yiri waa yahay ayuu madaxweynuhu carray markii cafis fidiyay si aan loo xirin waa ninka maanta madaxtooyada dhex fadhiya waa ninka hay'adda CIC ee xalana ka shaqeysa ee sirdoonka u qaabilsan security-da fila Soomaaliya waa ninka iska leh waa ninkii Soomaaliland waa ninka keenay Bashiir muxuu Cabdiraxmaan Bashiir ninka ergiga gaarka ah Soomaaliland iyo Soomaaliya ninka waa ninka keenay weeyaan ka dhigay waa ninka Soomaaliya wax allaalay wixii Soomaaliya ee sirdoon ahaa ee xamar u shaqeynay waa ninka Soomaaliland keenay waa ninka inoo fadhiya madaxtooyada dhexdeeda ra'iisul wasaaraha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland horta taa hal ogaado dhibaatada taas ay jirtay marka shaashka kale aad weydiisay ahayd xisbigiina ayaa runtii is haysta horta aniga xisbiga kulmiye meelahaas marka maqla way is haystaan aniga isma haysano xisbiga kulmiye waa xisbi guula wuxuu jiraa maanta 23 sanadood sanadkii 24 baa u socda waa xisbiga ugu da'da weyn leh xisbiyada haddii maanta jir laa xisbigii udubun baa ka daaweynaan lahaa laakiin maanta waa xisbigii ugu yucid cid isma haysato
madaxdeeduna waa madaxda waddan ka soo shaqeynaysa hadday SNM haydna soo dagaalantay haddii wasiiradii ugu waaweynaan ay meesha ku jiraan laakiin waxbaa lagu qarinaya qoladan wadani baa maalin walba waxay wadaa hawl beena wadaa oo foostooyin soo riixa waxbay ku qarinayaan waxaa jirtay maalmihii ololihii markii hore xisbiga kulmiye maayarka caasimadu aad buu ugu dhawaa waatii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi uu siiyay uu ka reebay raggii kale uu maayarka ka dhigay aad buu ugu dhawaa xisbiga inuu soo galo runtii uu codsado codsiyo badan buu soo codsaday xisbiga aad buu ugu dhawaa laakiin intii dambe ololihii ayaa waxa dhiil la galay xisbiga wadani waxay dhiil kula galeen in la baabiyo xisbiga ucid marka la baabiyana xisbiga wadani la dhiso marka xisbiga wadani soo baxo hadii ku talada ku guurayso sidan hadda kale maayarka magaalada la siiyo gudoomiyaha xisbiga wadani marka si ay fashilkooda uga fogaadaan oo imika waxa la isku haystaa jagadii gudoomiyenimada xisbiga oo dadkii loo ballan qaaday ee u ballan qaadeen ee ay ku soo xirigeliyeen maayar ka mid yahay ayaa muxuu ahayday ayaa la diidan yahay oo wuxuu leeyahay xisbiga wadani kulmiyaha haysta si aan fashilkooda banaanka ugu soo bixin marka fashilada noocaas oo kale ayay sameeyeen ilaa iyo haddana waxay la dagaalamayaan oo madaxtooyada ay aad ula dagaalamayaan inaanay lagu wareejinin xisbigii muxuu ahaa maadaama xisbigii ucid la aasay markaa si kale u dhigtana taageerayaashii xisbiga ucid waxay mudareerayeen inay la wareegaan xisbiga wadani maadaama markii hore dhiilka lagula galay dhiilkaasaa dee ayay qarinayaan oo ku qarinayaan meesha midda kalena wallaahi runtii kelmaddan kale xagga maadaama maayarka soo hadal qaaday anigu maanta waxaan oran lahaa runtii maayarku waxyaalo badan baa ayaa meesha ku jira waxaan anigu oran lahaa wallaahi hawsha uu maanta ku jiro inuu iska casilaaba u qurux badan runtii uu isaga taga meesha waayo ceeb uu kasii qaadaya ceeb aad u fara badan ayuu runtii kasii qaadayaa dadkii way kala qaybsameen dadkii way wada haystaan magaaladii way kala qaybsan tahay marka maadaama oo xildhibaanadiisiina ay leeyihiin la xisaabtan oo xisaab meeshii timi anigu waxaan oran lahaa runtii maayarka waxaan kula talin lahaa runtii inuu meesha isaga tago ay ku qurux badan tahay oo iska casilo doontana dee gudoomiyenimadiisa loo igmaday ee wadani markii hore dee loo ballan qaaday inkastoo laga dagaalamayo oo xagga lagala dagaalamayo si aanu gudoomiyenimada wadani ula wareegin haddana waxaan anigu oran lahaa balbal xaggaagan kaalay waayo maayarnimadu way uga dhamaatay sababtoo ah magaaladii Hargeysa way kala qaybsan tahay daamay kala noqotay dhibaatooyin badan baa meesha ka jira intaa ka badanna haddii uu sii joogana runtii waxaan qabaa sharaftiisii iyo sumcadiisii way sii baaba'aysaa marka waxaan kula talin lahaa inuu iska casilo oo uu isaga tago oo halkii loo ballan qaaday xisbiga ucili la aasay isagii ragga kale ay xisbiga ucili aaseen aasitaankii daar aasteen kii lagu abaal gudayay doonta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ninka lagu yiraahdo muxuu ahaa Xamse runtii markaad eegto anigu waxaan ogahayba maadaama ra'iisul wasaare aynu leenahay xamar ka soo shaqeynayay oo xamar xiriir la leh oo fila Soomaaliya xiriir la waddanka joogo anigu I believe waxaan qabaa in ay ka dambaysaba dawladdan isku furanka ah waa isku furankii waa isdhexgalkii koonfuriga Soomaaliya iyo Soomaaliya ayay ka mid tahay tani marka waa arrin ay og yihiin oo way ka hadli lahaayeen waa arrin ay og yihiin inuu Xamse meesha yimaado wasiirada farakutiriska ay ku sheegayo ee qaybka Soomaalilandnimadu ay ka dhabtahay weeyaan inkastoo isaga laftigiisu aanu shaqaalihiisii u garqaadin oo aan cadaalad shaqaalihiisa u sameeynin oo dad badan oo ay ka mid tahay Fawsiye Faliirba ay ka mid tahay ba uu ku eriyay bas kulmiye u shaqeyn jirtay isaga laftigiisu ma fahanteen wasiirka warfaafintu saa sameeyay oo aan cadaalad sameeyno kan ha u shaqeeyo kulmiye iyo doonaba ha u shaqeeyo iyo wadani ha u shaqeeyo oo muwaadin reer Soomaaliland oo dawladda u shaqeynay saas isaga laftigiisu ma fahanteen laakiin waxaan ogahay in ay jirto bilgii hore ee wasiirka madaxtooyada ahaa ninka lagu yiraahdo magaciisii Xirsi inuu Soomaaliya hoos u heshiiyay oo uu hadal la furay wadahadalada sababtoo furay lacag dhaqaale bay ahayd dhaqaalihiina maanta la raadinaya oo la doonaya in xamar dhaqaale laga helo oo Xirsi ka dambeeya oo uu ra'iisul wasaaraha cusub ay ku sheegaya ka dambeeya oo uu ka dambeeya dawladdan isku furanka ay ka dambaysa si xamar lacag ay uga helaan ayay u keenayaan ninka lagu yiraahdo Xamse meesha iyagaana ka mas'uul ah iyagaana ka dambeeya markii hore la sacaanad inay faraha ka baxdaan iyaga ka dambeeyay oo mucaarada ma fahanteen marka cadaalad darro far badan baa meesha taala reer Soomaaliland wareer badan bay ay ku sameeyeen anigu waxaan oran lahaa waxaas oo dhanba waxa ka dambeeya dawladda isku furanka iyada markaad eegto wadani buugiisii ay soo bandhigay wax qabadka uu qabsan yani wuxuu qaban doono waxa kamid ah in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada hadli doonaan ayaaba buugiisa ugu qoranba marka already isku furanka uu furanba marka horeba xisina waa kii aad anigu waan la hadlaynaa si cad iyo si gaaban baan la hadlaynaa marka wada hadaladii waa isku furankii Ilaahay oo sahla waxaan leenahay ummadda reer Soomaaliland dalkiina difaaca waa la soo duulay wada aragtaan in lagu soo duulay ciidamada madaniga waxay uga haystaanba in xisbiga kulmiye leeyahay ciidamada leeyahay xoreyn oo qaraneen ay
ujeedo kale kama waxa haystaan jalfis mara loo dhigay kulmiyihii u sii dhigay maaha kulmiyihii jalfis u soo dhigay waa duruufaa keenay ciidamada madaniga ah oo meesha inay wax difaaca keenay marka wala kaysa dagaal nooc kala oo gudaha ay ku jiraan nimankani waa lacag ururis lix qaybood bay dawladda isugu jirtaa lix qaybood bay ku soo fuushay meesha lixda qaybood ay isugu soo fuushayna waxa weeye waa ganacsato doonaysa dadka inay boobto wali sixir bararka dadka ku haysa batroolkii baad arkaysaa maanta inuu halku marayo batroolkii ilaa hadda hoos muu soo dhicin markii dawladda kulmiye joogtay hoos baa loo soo ridi jiray sarifka lacagta sidoo kale raashinkii waa caynka waa halkiisii taagay inuu cirka isku sii shareero mooyane marka ganacsatadii soo saartay oo kamid ahayd wadani kamid ahayd ayaa loo dareenaya dadka loogu dhigmiinaya qolo saddexaadna waxa weeye waa qolo tuuga ah oo inay dhacaan wasiirro iyo agaasimayaal laga dhigo inay dhacaan raba oo tuuga ayaa ku jira qolada saddexaadna waa qolada walaadada ay ictisaamta oo ujeedada ay leeyihiin inay hadda aanan fahansanayn ayaa dawladda ku jirta qolo afraad baa jirta oo saddexdaa qolo hataa la hadasho oo aad tiraahdo way qaldan yihiin qolo kula dagaalamayso hab qabiilku kula dagaalamaysa jirto madaxweynaha anagu haysanaayo yaa yiri la hadla oo aan fahansanayn ba meel ay wax u socdaan dadka caaya facebookyada ka caaya baraha bulshada ka caaya la dagaalamaya oranayinba war meeshan waxa ku jira ee laga hadlaya waxa yihiin oo taa la ogaado marka dhow lix qolaa meeshan isuwan waa Soomaaliyeed oo qolada isku furanka ah wasiir uu kamid yahay waliba agaasimaha guud ee arrimaha dibadda kamid yahay waxa kamid ah madaxweynaha ninkan jaamac gaabish baa kamid ah xogay wasiirka madaxtooyada kan rag badan baa kamid ah Soomaaliland aan aaminsanayn waxa kale oo kamid ah rag iyadoo u yimid boob dalka inuu yimaadaan waxa kamid ah ictisaam baa kamid ah waxa kamid ah qolada kale waxa kamid ah ganacsatada baa kamid ah istii ilaa hadda cadda khalifa gacan ugu jira oo la doonayay afis loo fidiyo la ilaa Soomaaliland buu yimid shem ayaa qaarkood ay wadani sameynayaan bay kamid yihiin marka waxa soo dhan baa meesha yaala oo meesha isugu yimi marka waa ujeedada badan dawladda ujeedada badan waa ictisaam waa ganacsato waa tuugo lacag booraysa waa qolo Soomaaliyeed hoosta ku wadata waa bilaadan ba meesha waa qolo iyaguna xukunkii baa maanta qabsanay waa dagaalamayna qofkii dawladda la hadlaba xitaa day jihadu ku jira jinka cid ilaa la dagaalamayna waa qolo iyaguna dhagaxyan marka wax fara badan baa meesha isku huwan laakiin dhawaan bay soo bixi doontaa hadii ilaahay